بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصومالية دوان سلامي وحان الله ماشي نوير فاميلي وحان إذنها حق السير oo sheekh ka soo xigtay marka sida tan bay u dhacday ninba waxa la deganayd hooyadiisa waayeela nin Sacuudigaas ninba waxa la deganayd hooyadiisa waayeela marka xaaskiisa way iska ogtiin inta badan dumarku ma jecla ninka hooyadiis laakiin inay jeclaadaan baa fiican oo maxaa yeelay ninkan 9 bilood hooyadiisa soo waday caloosh ku soo waday ila soo korisay ila xaar ka soo dhaqday ayada wax soo baratay ayada soo barbaarsatay ilaahay ka sokow ayada le meel soo saaratay marka dumarka Soomaaliyeed waxay rabaan inay ninkii ayagu hantiyaan markuu weynaado hooyadiis ka gooyaan ehelkiis ka gooyaan ayaga bas ilmaheeda u go'aan laakiin ma noqonayso diiniyana ma fiicna marka waxaan qisayr ban soo xigtay aan sheekh ka soo xigtay wuxuu dhahay sheekhan waxaan Sacuudiga anagoo joogna ayaa waxa la sheegay dhahay maamo waayeel ah waxay la deganayd wiilkeeda naagtiisa caruurtiisana way joogeen marka maamada waxaa la degjiyay ku seexan jirtay guriga shaqaalaha oo meesha u koraysa guriga ah waa fahmi kartaan ayagana waxa ku raaxaysanayaan guriga meesha fiican marka wuxuu dhahay maalintii dambe iska deganayd oo iska qanacsanayd maalin maalmaha kamid ah maamadii meel aaday waxay soo laabatay gurigii qoful saaran yahay markay soo laabatay waxay aragtay wiilkeeda xaaskiisii oo guriga iridiisa hore taagan waxay tii maxaa dhaca guriga loo qafilay xaaska ninkii wiilkiina gadaal buu ka taagan yahay maamadu dhashay oo naagta qabay waxay tiri maxaa dhacay oo guriga loo qafilay waxay dhaheen gabadhii waxay tiri wiilku qabay maama bay tiri guriga waa u baahanahay qolka seexatid waa u baahanahay maxay tahay shaqaalaha noo seexanaysa marka waa fasaxantay maamo adduunkaaga iska dhici camal marka maxay tahay boorsadeediina waa loo sii diyaariyay banaanka loo soo dhigay marka waqti xun bay ahayd meel ay aadayso ma leh maxay tahay wiilkeediina waa kana uu maqlaa uu taagan yahay wax ma dhigi karo naagtan jecel yahay marka maamadii way iska tagtay waxay u tagtay dariska baab ku gargaraacday waa lagu furay waxay tiri meel caaw seexlaysiiya bas maamadii waa la soo dhaweeyay dariska soo dhaweeyay daris fiican bay way soo dhaweeyeen gurigay keeneen way seexsheen cuntay siiyeen way sooreen saxay maama maxaa dhibka xiligan ku soo saaray waxay tiri maana caaw bas inaad la seexdo ayaa rabaa bas habeenkii la seexatay gabadheeda markaa wacday oo meel kala degan waxay tiri maandhay saasay igu dhacday waa inaad ii imaadaa gabadhii halkay hadal fiican ka sugaysa waxay tiri hooyo bay tiri anigu kuma imaan kari maxaa yeelay maalintii dhood labada maalin nala joogtay bay tiri ninkaygu wuu dhibsaday oo ilaahay hadda waxaan ka soo kaban laanahay bay tiri dhibaatadii ay nagu reebtay labadii beri aad nala joogtay ninkayguna wuu ku dhibsaday marka hooyo anigu ma ku imaan kari isdabar marka haddaan islaam nahay haddaan Soomaali nahay horta dad fiican baan nahay laakiin ma fiicna wiilka hooyadiis in la takooro marka waxaan idinku bogaadinayaa qisadan waa qisada yar ee kooban maxay tahay waxay ka turjumaysaa iska fahmi kartaan macna dheer bay leedahay in hooyada la faquuqin wiilka hooyadiis waliba siiba aan la faquuqin oo aan maxay tahay la takoorin oo aan maxay tahay si la xumayn waa hooyada oo kale waa maxay tahay waalidkaaga oo kale hooyadaas u dhaqantay ula dhaqan marka waxa waay maamadii dariskii ay la noolayd daris u dhawaa ayaa guri u kireeyay oo nololkeeda meel saaray oo daris fiican noqday dariska u kacay dariska ay u baxsatay marka waxaan idinku bogaadinayaa haddaad gabdho Soomaaliyeed tihiin wiilka ninka idin qaba hooyadiis ina sida hooyada ugu maxay tahay u soo dhaweyn lahayd ama u soori lahayd ama aad la noolaan lahayd aad la noolaatid bifadlan aniga maxay tahay saasaan idinku bogaadinayaa gabdho Soomaaliyeed haddaad tihiin maasha Allah qisadan waa qisa aad kale u bogi doontaan sheekh waana ka soo xigtay marka asxaabay iyo Soomaaliyay aan ilaalino hooyooyinka aan isku mid ka dhigno marka maxay tahay waa qiso sheekh weyn ka soo xigtay waa maxay tahay insha Allah qisooyinkan oo idin soo wadaa marka maxay tahay aan ku dhaqano sida diinteena macaan ina fartay sida diinteena macaan inoo sheegtay dad islaam aan nahay marka waa salaam assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh